asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu. daawadayaal kusoo dhawaada, waa anigoo ah xasan sheekh maxamed. halkaan nagala socotaan waa African Somali Media. barnaamijkeena maanta aan kusoo qaadan doono waa dadka hormuudka u ah ganacsiyada hirgale. waa gabadh Australian ah oo lagu magacaabo Abigail Forsell oo aas-aasay shirkad soo saarta koobabka qaxwada lagu cabo oo dib loo isticmaali karo. fadlan subscribe si haddaad nala joogtiin oo aad ku mahadsan tahay. mahadsanidin. shirkadeeda ganacsi waxaa lagu magacaabaa kiibka. markii ugu horeysay ay Abigail Forsell la timiday fikradeeda ku saabsan ganacsigeeda iibinta koobabka qaxwada ee dib loo isticmaali karo. waxaa ku gacan sayray mid ka mid ah dadkii wax nashqadeynayay ay ula tagtay. wuxuu ku yidhi, fikradaada waa tii ugu doqonnimo badnayd ee aan abid maqlo. Abigail oo dib u xasuusanaysa maalinkaas. xaaladdu way kasii dartay markii ay u tagtay maamulaha warshad ay damacsanayd inay koobabka u sameeyaan. wuxuu ku yidhi, waxa aad ka hadlaysid waa koobun. dadku waxa ay ka fikiraan waxyaabo waaweyn, wax qiimo fiican leh ayay dalbadaan in loo warshadeeyo. wayna kaa fikrad fiican yihiin. xitaa waxaa jira dad aan u warshadaynay alaab ka fiicantaada, wayna u gadmi weyeen. Abigail markii ugu horeysay hawshan bilaabaysay waxay ahayd sanadkii 2008 waxayna ku sugnayd magaalada Melbourne ee wadanka Australia. Abigail iyo walaalkeed Jim waxa ay la yimaadeen fikradda ganacsiga ee kiibka sababtoo ah waxay ka walaacsanayeen balaayiinta koob ee aan dib loo isticmaali karin ee sanad walba qashinka lagu tuuro marka qaxwada lagu cabo hal mar oo keliya. markii horeba waxa ay ogaayeen sida ay xaaladdu u xun tahay, waayo waxay 10 sano oo xilligaas ka horeysay ku ganacsan jireen meherad qaxwada lagu iibiyo. sidaa darteed waxaa ka go'onayd inay isku dayaan sidii ay arrintaas wax uga bedeli lahaayeen. halkii ay ka caroon lahaayeen koobabka qashinka noqonaya iyo saameynta ay horey u arkeen, waxay dareemeen in la joogo waqtigii ay go'aan ku gaari lahaayeen in ay soo afjaraan xaaladdaas. sidaas ayay sheegtay Abigail. waxaa ka go'onayd inay ganacsigooda heer fiican gaarsiiyaan. si dhab ah ayaan fadhiga uga kacan, ayay tiri haweenaydan oo hadda 49 jir ah. maanta shirkadooda kiibkaab waxay caalamka ka iibisay 10 milyan oo koob. waxay shirkadooda qiyaasaysaa in koobabka ay iibiyeen laga badbaadiyey 8 milyan oo koob oo qashinka lagu dari lahaa. Abigail oo ku dhalatay magaalada Glasgow balse ku kortay Melbourne, waxay markii hore baratay cilmiga sharciga. 4 sano markii ay xirfadeeda ku shaqaysanaysay laga soo bilaabo 1994 way iska dhaaftay, waxayna furatay meherad lagu iibiyo qaxwada. markii ay iyada iyo walaalkeed muddo wadeen hawsha, ayuu Jim ku qalqaaliyey fikrad cusub, wuxuuna u bildaamiyey inay guulaysan karaan. Jim mar walba wuxuu dhihi jiray, tani waa fikrad fiican oo heer sare gaari karta. aniguna waxaan ka fikiri jiray sida ay suuragal u noqon karto dadkana looga dhaadhicin karo. koobabkii ugu horeeyey markii la warshadeeyey sanadkii 2009 waxay bilaabeen in ay ku iibiyaan meherad ay ka sameeyeen isla magaalada Melbourne. Abigail waxa ay sheegtay in koobabkooda ay noqdeen sidii wax dadka oo dhami ay sii sugayeen, isla markiiba la kala boobay. muddo 6 saacadood gudahood waxa ay ku iibiyeen ilaa 1,000 koob. noocii ugu horeeyey ee aan samaynay waxaa lagu jeclaaday qaabka ay yihiin, ayay tiri. dadku waxay dhahayeen, ma aqaano waxa uu yahay, laakiin hal mid iga sii. dhowr sano gudahood ayuu ganacsigoodu sare ugu kacay, ilaa markii dambe dalabaadkoodu ay aad u bateen. waxay sheegtay in ay ka qayb galeen bandhigyo ganacsi oo dhowr ah. dhaqaalaha sanadkii u soo xarooda shirkadooda ayaa lagu soo warramayaa inuu yahay 8 milyan oo dollarka Australia ah oo u dhiganta 5 milyan oo dollar.